wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay taariikhda madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Maxamed Islaam oo ku magac dheer Axmed Madoobe waxa uu muddo ahaa shakhsiyaadka ugu cadcad siyaasadda gobolada Jubbooyinka, magaalada ugu weyn ee Kismaayo oo magaalo madax u ah dekedeeda oo dhaqaale badan ugu soo baxo. waxa uu ahaa xubin ka tirsan midowgii maxkamadaha Islaamiga ah waxaana madax ka ahaa isla magaalada Kismaayo ilaa intii ay ciidamada Itoobiya ridayeen maamulkii maxkamadaha sanadkii 2006. sanadkii 2007 waxaa xiray ciidamada Itoobiya waxayna ku hayeen hotel Gion oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. waxaa lagu sii daayay wadahadallo uu aqbalay in xil loogu magacaabo xukuumaddii ku meel gaarka ahayd madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, laakiin markii dambe ayuu ka goostay oo uu diiday xilkii loo magacaabay. sanadkii 2008 maleeshiyadii Ras Kamboni oo uu hoggaankeedii ahaa ayaa isla markaana kula dagaalamay magaalada Kismaayo xarakada Al-Shabaab oo markaasi doonaysay inay qabsadaan magaalada Kismaayo. muddo kadib waxaa bilaabmay in labadii urur ee hubeysnaa ku loolamaan gacan ku haynta magaalada. ugu dambeyntiisa waxaa si buuxda Kismaayo iyo koonfurta Soomaaliya badankeedaba gacanta ugu dhigay xarakadii Al-Shabaab sanadkii 2009. mar kale ayaa haddana bishii Sebtembar sanadkii 2012 Al-Shabaab waxa ay magaalada Kismaayo ka saareen ciidamada Kenya oo hadda Axmed Madoobe noqday xubin muuqata oo ka tirsan maamulka maxalliga ah ee magaalada loo sameeyay. 15 May 2013 waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ee la dhisay isla markaana uu khilaaf badan uu ka dhashay. hase yeeshee waxaa warbaahinta xilligaasi ay tabinayay warar kala duwan oo isburinaya qaarkood oo tibaaxaya in uu isagu isku caleema saaray hoggaanka maamulkii la dhisay oo uu xoog ku maroojistay. hase yeeshee waxaa mar kale warbaahinta ku warantay in uu cod aqlabiyad leh uu ku guuleystay, inkastoo ay isla markiiba maamulkiisu taageereen wadamada Kenya iyo Itoobiya. haddana xukuumaddii xilligaasi jirtay waxa ay ku qaadatay muddo dhowr bilood ah inay ku aqoonsato ama ay ku aqbasho natiijada doorashadaas. waxaa khilaafkii ka dhashay mar dambe lagu xaliyay wadahadal ay garwadeyn ka ahaayeen ururka IGAD. qiyaastii 4 bilood kadib 13 Sebtembar 2013 ayaa kolonyo uu watay waxaa ku qarxay baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay isagoo oo maraya Kismaayo gudaheeda, waxaana uu ku dhaawacmay weerarkaas oo ay xarakada Al-Shabaab sheegteen xilligaas. ergeygaarka ah xogayaha guud ee qaramada Madoobe u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay oo xilligaasi xafiiska joogay ayaa ku tilmaamay Axmed Madoobe inuu yahay qof muhiim u ah isla markaana qayb muhiim ah ka qaadanaya nabad raadinta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. xilalkii uu soo qabtay madaxweynaha maamulka Jubbaland 2006 gudoomiyaha Jubbada Hoose maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ahaa. 2009 xubin sare oo ka tirsan ururkii Xisbul Islaam. 2010 taliyaha ciidamada Xisbul Islaam ee gobolada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. May 2010 waxa uu baxay isla markaana uu ka baxay ururada waxaana uu mar dambe uu ka mid noqday hoggaanka ururkii Ras Kamboni. sanadkii 2013 ilaa iyo sanadkii 2019 madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. 22 Agoosto 2019 waxaa mar kale loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. doorashadan oo ay khilaaf badan uu ka dhashay ayaa waxaa qaar ka mid ah mucaaradku ay ku eedeeyeen inay ahayd hanaan isugu xil saaray isla markaana uu dantiisa isku caleema saaray. ergeyga xogayaha guud ee qaramada Madoobe Soomaaliya u qaabilsan James Swan ayaa isaguna dhaliilay sida loo waday qabanqaabada iyo hanaanka doorashada maamulka Jubbaland. warqad uu u diray gudoomiyaha guddiga doorashada ayuu ku sheegay in waxyaabihii suurtagelin lahaa doorashada lagu wada qanacsan yahay aanay guddiga suurtagelin isla markaana aysan samaynin. hase yeeshee gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland ayaa warqad uu ugu jawaabay eeda ku tilmaamay kuwa aan jirin kagana codsaday in beesha caalamka ixtiraamto shuruucda dowlad goboleedka iyo sidoo kale dowladda federaalka oo ay ku shaqeeyaan isla markaana raaligelin buuxda ay ka bixiso eedeyntaas ay u jeedisay maamulka Jubbaland.
dawadayaal waxaan intaas ugu soo afmeerinaa barnaamijkii koobnaa oo aan ka diyaarinay taariikhda madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana ka daawanayseen kulan radio ee magaalada Beledweyne intaan barnaamij lamid ah ku kulmi doono waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo